Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed uu dalku marayo. Waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka markii ugu horeysay ka hadlay maqaamka caasimadda oo waayihii ugu dambeysay muran badan dhalisay. Gudoonka Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa go'aanka maanta uu soo saaray waxa uu kaga hadlay cidii iska leh go'aanka gaarista maqaamka caasimadda dalka. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dhowro dastuurka dalka iyo dawladnimada, isaga oo sheegay go'aanka gaarista maqaamka caasimadda ay tahay awood ay gaar u leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya. Jawaari waxa uu sheegay in Golaha Shacabka oo kaliya ay leeyihiin matalaadda shacabka, taasina ay tahay qodob dastuuri ah sida ku xusan qodobka 63 ee dastuurka qabyada ah. Golaha sharci dejinta oo kaliya ayaa go'aan ka gaari kara maqaamka caasimadda inta laga dhameystirayo dastuurka qabyada ah. Waxa dhamaadka war-saxaafadeedku soo saaray uu ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in loo midoobo xaqiijinta ammaanka dalka iyo dhameystirka hanaanka federaalka ee la doonayo in lagu baahiyo dalka oo dhan. Odayaal waxgarad iyo aqoon-yahano oo saacadihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan ku yeeshay Muqdisho ayaa aad uga hadlay arrinka maqaamka gobolka Banaadir, taasoo muran badan dhalisay. Dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo saaray war-saxaafadeed kaas oo looga hadlayay in aan la bixin karin dhulka danta guud ee ku yaala Muqdisho. Aways Maxamuud Julco, Cable TV, Muqdisho.